naga go'an oo ilaahayna ka baryaynaa inaan ummaddan sida ugu cadliga badan oo u dhaqi karna aan u dhaqno sida keliya oo dhibka looga bixi karana waxay tahay inaan aqbalno khaladaadkii aan soo samayno marka aan aqbalnana aan ka heshiino sidii aan uga bixi lahayn waktigii xoolaha waddanka la dhacaya way dhammaatay waktigii la isku xadgudbaayo way dhammaatay waktigii albaabada laydinka xiran jira way dhammaatay waktigii waxaa la soo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabtanka waxaana idiin ballan qaadaynaa aniga madaxweynuhuba inaan runta idiin sheegno si daacad ahna aan waddankan ku maamulno maalin iyo laba laguma xallin karo dhibaatada waddankan laakiin waxaan shacabka soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in bilaaw cusub uu bilowday waxaan idiin ballan qaadayaa marka aad qorraxda fadhiisataan inaan idinla fadhiisan marka aad faraxdaan inaan idinla faraxno markaad murugootaan inaan idinla murugoonno wax walba oo aad noo sheegtaan oo dalkana u baahan yahana inaan idin dhegaysano albaabadan aan idiin furno qalbiga adkaysta ilaahay dhibka wuu naga saari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay qalbigeenna ha isu soo dhoweeyo ilaahay dhibka ha naga saaro ilaahay iimaankeenna ha sugo ilaahay cadaaladda hana waafajiyo ilaahay dhibkan ummaddan dhibaateeyey sanadaad badan ilaahayow waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahow waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahow rabbiyow xaqa nagu dib ilaahow rabbiyow isku soo no dhoweey ilaahow rabbiyow qabyaaladana baabiisa naga qabo ilaahow rabbiyow adduunyadan aan wax ka raadinayno noogu bedel inaan annagu qalbigeenna iyo annagu wax iska raadino ilaahow shacabka soomaaliyeed isku soo dhoweey ilaahow sharafteenna noo soo celi ilaahow karaamadeenna noo soo celi ilaahow culimmadeenna barakeey ilaahow dhallinyaradeenna barakeey ilaahow dumarkeenna barakeey ilaahow madaxdeenna anugu aan ugu horreeya xaqa waafaji ilaahow xaqana waafaji ilaahow xaqana waafaji ilaahay ha idin barakeey kulliy